maayaradda cusub ee magaalada Beledweyne Nadar Tabax maalin oo dhawaan loo magacaabay xilka duqa magaalada Beledweyne ayaa si rasmi ah lagu wareejiyay xilka loo igmaday waxaana madasha xil wareejinta goobjoog ka ah madaxda ugu sarreysa maamulka gobolka Hiiraan saraakiisha ammaanka maamulka degmada iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ugu horeyn waxaa madasha xil wareejinta ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cusmaan isagoo maayaradda cusub ee magaalada Beledweyne ugu hambaliyay xilka loo soo magacaabay kuna wareejiyay feelalkii shaqada waxaan u malaynayaa xoogaa isbeddelka badan wuxuu keenaa hal khasaare dadka siyaasadda danaynaha ummadda ku badanaya ka bacdina wuxuu noqonayaa cid harsataba in la waayo oo ay noqoto dad iska nabad ahaa marka waxaan leeyahay walaashay Nadar duqa magaalada hambalyaan ku leeyahay ku soo dhawow xafiiskaaga anagoo aanaan xil hayna waa wada shaqay jirnay annagoo midkeen xil hayana waa wada shaqay jirnay haddoo aan labadeena xil isla hayna waxaan filayaa inaan wada shaqay doono haddii alla intaas kadib waxaa goobta ka hadashay maayaradda cusub ee magaalada Beledweyne Nadar Tabax maalin waxaana ay sheegtay inay si laba jibaari doonto howlaha shaqada bulshada ee degmada oo ay markii horeba si mutadawacnimo uga shaqayn jirtay waxaan maanta joogaa Beledweyne joogi jiray ka shaqayn jiray anigoo si aan xil u magacaawneyn aan uga shaqayn jiray dalkayga iyo dadkayga maantana waxaan diyaar u ahay intii inaan si laba laabo marka war badan ma leeyahay ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cusmaan Cali iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada deegaanada Hirshabelle Maxamed Cabdullaahi Buraale maanta munaasabada aan joogno wada ogtiin maayar cusub mar dhow la soo magacaabay madaxweynaha dowladda gobolka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdullaahi oo noo soo magacaabay Marwa Nadar Tabax maalin runtii hambalyaan la wadaagayaa dadkii hore u hadlay hambalyaan leeyahay midda kale Marwa Nadar qof maamulku cusub ma ahayn qofna la joogtay ahayd qofna la shaqeynayay ahayd qofna naga warqabtay ahayd waxaan ogahay xasuustaa nuqdiyaraan soo qaadanaa xilli ay abaar ka jirtay degmada Beledweyne ay dadku dhinteen oo gudoomiyaha maamulka gobolka hadda jooga xilligaas markaa gudoomiye ka ahaa ayaa wuxuu amray in dadka kijima loo sameeyo raashin lagu qoodiyo waana gudoomiye ugu horeeyay ahaa oo runtii talaabadaas qaado kijinadaas guddiga la magacaabay ayaa iyada madaxa maaliyadda ahayd anagana xisaabiyaan ka ahaa xaqiiqatan dhaqaalaha ama hay'adaha tabarucaad ay ahayd badanaa ayada lagu soo aruurinayo si hufan oo wanaagsan ay amaanadaas u gudubtay marka waxaan taas ka wadaa macnaa in qof nagu cusub aysan ahayn oo hadda hawshan ku cusbeenay qofna la joogtay ahayd runtii maanta waxaan rabnaa in soo dhaweyno walaashay Nadar Tabax maalin runtii Nadar Tabax aniga si qaasaan maaragtay dadka isaga dhaweyn oo shaqooyin badan oo bulshadana aan iskala shaqeynayno runtii waa sababta aan jeclahay inaan u garab istaago walaashay waxaan aaminsanahay inay wax badan bedeli karto inkastoo maaragtay mar walba magacaabid ay socotay ay dhibkeeda leedahay oo rajaynin in laga gudbo maaragtay magacaabista duq magaalo oo la sameeyo goliya deegaanka ahay councilka ahay oo maaragtay oo la isdooranayo oo maaragtay wax badan ka qaban lahay degmadan iyo baahiyaheeda waxaan rabaa marka Nadar inay howlahaas oo soo jiitamayay oo hadda rag ka shaqeynaya barnaamijkaas sida gudoomiyihii hore ee Buuliburta oo fadhiyo in arrimahaas la dardar geliyo Cabdiwaxid Maxamed Aadan warbaahinta Shabeelle Beledweyne